وري محلها قبل وقعيس وولالكي ويان يا أبهاي ما أبها عليك ولا هاني قيدرة يا ما أبها عليك ولا هاي أنت يربع يوتر الدولة الأب أوغي بأنا قعدت كلام ما نعرفشين ما أقول علي إسماعيل ها ولا كان محلها وقعيس عبد علي إسماعيل أبها مقابعنا ها بالود بليه محب الودس كم دقاتكو أنا بقاعدكم بانكو أغا موت وحكا لنا ولا كان walaalkay balwad kuma ogeyn marka sideebu awoowe u dabci karaa gabar ay gabadhiisa dhasho xanuunsan daahiro aan ku yaran dul maray waxaan degnaa meel miyiga kow baqaw reer miyiga waad garanaysaa diintana ma bartaan moogtahay haye qaw aabahay hadda ka hor ma rumaysteen oo waxa maskaxdayda haatan geli kari laa aaba maskaxdayda wuu galay oo wuxuu u galay hadda ka hor inan buu aabahay kufsaday anaga nahayn jirtay ha inan nahayn jirtay oo intay hooyo meel ida geysay bariga idaanu lahaan jirnay ido badan idii way naga dhamaadeen oo imika riyo yar iyo geel yar baa noo hadhay laakiin bariga markay idihii bay hooyo meel u kaxaysay haye inan bay tiri haydin sii hayso aniga inankii igu xigay oo markaa yaraa laakiin anigu waxaan ahaa reerkan ugu weynahay oo caqli baan lahaa haye markaa inantii anigu iyo inankii iyo inantii oo wada jiifnu aaba markaa inantii kufsada haye anigu awood ma lahayn markaa laakiin markii dambe hooyo timiday anigu ma sheegin waxaan siri reerku wuu kala tegi oo ceebba halkaa ka iman hooyadana ha ka nixin ma garanaysaa haye inantii adigu sidii bay nagula joogtay markii dambena reerkoodii baa loo geeyey gabadhaas iyay ahayd gabadha mar kalaan ka sheekayn doonaa laakiin hadda taydanaan rabaa inaan dhammeeyo gabadhaan xanuunka haya muxuu yahay gabadhaan taada ah maskaxda in yar bay maskaxdeedaa yar baa laygu yidhi maskaxdaa yar adiga gabadha ayaa u dhiibtay marka hore ku hay gabadha reerkayagaan u dhiibtay aabbaha ma u dhiibtay hooyada hooyo ma noolo hooyada way dhimatay yaa oo tagtay gabadha ku hay secretary waxaan uga tegay hablihii ila dhashay ee walaalahay ahaayee iyadana habaryarteeda ahaa waaya yadii aabbahay iyo inamadii walaalay dee kuwii cidii ugu xigay baan isiridee ehelkaagii weeyaan laakiin imika waxaan aqirsaday inaba maxay ahayd ehelii ahayn okay sheego oo gabadha la uuriyay adig sacuudiga ku maqnaa Soomaaliya inanta yar iyadoo 5 biloodaan uurkeeda ogaaday inanta waa la iga qariyay markii uurku ku soo baxay ma garanaysaa waxa la iga qariyay waxa la isiri way isdiri baa la isiri ama waxba dhici baa la isiri anigu inanta yar jaarku markuu uurkii ogaaday baa la sheegay markan inanta yar wareystaan ku uri maamo imise cishaa wax lagugu sameeyay waxa igu tiri abtigay intuu ifuulo uu igu oran jiray gudinta dhirta lagu jarjaro ayaan kugu jarjaraya haddaad i sheegto marka waxa wax fuulayo waa walaalka Cabdi Cali Ismaaciil ها وعبدي haye kaas waa sheegtay awoow waxay tiri ay waa ku wada awoowana waxaan ku iri sidoo wax kugu sameyn jiray waxa igu tiri timir buu ii keeni jiray waxbuu ii keeni jiray hidib buu ii keeni jiray markaas isna ay fuuli jiray marka iminka ma la yaqaan hadda ki aabaha iyo walaalka ka xitaa oo ku yeelo lama yaqaan
ما sheekada aan kugu dhamaystiray dulmi kala hadna igu dhacay oo CAD baan tagay markaan CAD tagay aan ku wari inantaydii yareed waxa ku dhacay oo reerkayagii iyo waxa la igu suldaankaaga u yeero caaqilka reerkiina anaga reerka caaqilkayaga aan ka soo jeedo jilibka ay caaqilkaaga yaa caaqilka suldaanka waan ku soo diri doonaa lambarkiisa suldaankii markaan la hadlaan ku wari kaalay suldaankii oo inankii maxay hayday inankii iyo aabahay baa waxaan sameeyay wuxuu igu rinaaya anigu kuma jiro suldaanka magaciis suldaanka waxa la yiraahdaa ina xaaji Saleebaan Cali Nuur baa la yiraahdaa waa suldaanka Cali Nuur tayadoo Cali Xuseen buu degan yahay Burco ina xaaji Saleebaan Cali Nuur wala yaqaana in qoladiisii ay dheeday dawladda ka socotay halkan islaha dawlad baa wax ku qabanayso cadaalad baa jirta waxa la igu yiri suldaankaaga haduu ku diiday waxba lagu qaban maayo halkan islaha doorashooyinka waxaan la doortay dawladda wax qabanaysa nin koofiyad sita ayaa awoodda la maxay hayda sheeganaya reeraha hada intan waayo inanteeda waxaas ku dhaceen daahiro inanteeda waxa ku dhacay nabarra ku yaala jirkeedu wada go'an yahay xagga hoosta meerjil way xaw buraan xaw abdi bashi xaw abdi bashi waa meerjil 13 sano jirta hadda 24 noqonaysa 25 hadda u noqonaysa 24 hadda way hadda maxay dhashay inantu ma dhalin bishii 8aad bay ku jirtaa hadda iyadii caloosha imika markan 5 bilood bay ahaydo ma dhaweyn hadda ay hadda sawirkeedii waan iga ku soo diray bishii 8aad bay ku jirtaa hadda dirqi bay ku kacaysaa inay siibato marka inay jabtaan ka baqaa saddex jir baan u uri haddana xanuunsanayso handikaaba